بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن رباح حوجا إن إيدين كرمرة وحياله كسوكر لي حالها وضنك كجرة كوفيد. أفر لواتن كساعة قدام بي وحاسوكر لي كونتون يتضبط حالات أو بوزيتيف وحالب مرق أفرتن يكو ضد الجنوا لحية طبعا. كونتون يتضبط أسقف سدح لواتن وحي جوجتا قبل كبنادر. puntland waxaa jooga 17 Somaliland waxaa jooga 17 da'da dadka cudurkan laga helay inta u dhaxaysa hadaan kormaro ilaa 20 jir waxa waa boqolkiiba 22 20 ilaa 39 waxa waa boqolkiiba 39 40 ilaa 59 waa 22 boqolkiiba 60 iyo inta ka weyna boqolkiiba waa 17 wadarta guud inta case oo xaalad Soomaaliya ka jirto waxa waaye 154 qof dhimashada waxa ku soo kordhay Ilaahay ha u naxariisto 3 ruux hal qof oo Somaliland iyo 2 qof oo Puntland ku geeriyooday Ilaahay ha u naxariisto tirada guud ee dhimashada waxay isugu tagaysaa marka 51 waxa ka bogsooday 8 qofood tirada guud ee dadka bogsooday waxay noqonaysaa 118 walaalayaal saad u jeedaan maalinba maalinta ka dambaysa nambarada waa sii kordhayaan gobolka Banaadir u sareysay haddana waxaad arkaysaa in maaragta goboladii kaleeto oo Soomaaliya oo dhan ay ku sii fidaayo tirada ay sii kordhayso horta waa ka duceysanayna Ilaahay shartiisa iyo caqabadiisa iyo dhibkiisa Ilaahay naga haayo cudurka waxa loo baahan yahay in xakameynta aad loogu dadaalo ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta cudurkan daawo ma laha laakiin in la xakameeyo waa waajibna wada saaran in la kala fogaado gacmaha la dhaqdo nadaafada guud la sameeyo lagu dadaalo banaanka in la iska yareeyo meelaha ciriiriga in la iska yareeyo hadii qofka uu dareemo calaamado kamid ah calaamadihii cudurka mar walba la baahiyo la sheega inuu raadsado wacdo nambarada loogu talagalay freega ah lagu siinayo macluumaadka qofka hadii xanuunka uu dareemo iyo takhaatiir joogto waanin doonta in maaragtay dadka waaweyn oo da'da ama xanuunada qaba chronic diseases ka loo yaqaan cudurrada raaga in xanaano gooni la siiyo iyagana laga fakaro in aan la isu dhawaanin in la kala dhowrsado waa wax muhiim ah sida loogu hortagi karo cudurka dhammaan waxaan isku dardaarmaynaa inaan يعني haddii aan baxayna banaanka xitaa dawladdu waxay isku dayday oo ay sameeysaa oo la tirada la badinayo mar walba in la helo afxirka mask loo yaqaano oo lagu talinayo takhaatiirta ay ku talinayaan inay fiican tahay in mar walba la xirto oo banaanka marka loo baxayo la iska dhowro bulshada inteeda kale naftaada ku dadaal walaalka iyo hooyada qof kasto ku dhow iyo saaxiibka ka ilaali cudurka insha Allah khayran noo wada rajeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh